بسم الله أبالكين وحق قدم كسايب والله وضع كثير معنا شرفه هذا شيء هذا أرشد عبد الله فرولة. الله سعيد. الله. ويسوقلن waxaan soo galay daawadayaal iyo waxaan idin muuqanaya xamdi filan baa idin muuqanaysa aad baan u soo dhaweynayna ayagana soo dhawaadaan leeyahay maanta oo dhan baan idin taagnaa xamdi waa tanaa xamdi filan waa tanaa gabadha aad sugayseen maanta oo dhan xamdi soo dhawow mar dhow soo dhawaada adigu waa tan Welcome to Nairobi. Welcome to Nairobi. Oh my god. soo dhawaada waa yahay dadkii way salsalaamayaan xamdi haye
هذا الكيوا كله جاي فرحات أوجد ما أنت شاء أصلا الله ودونا هاي وفرح سنة إلى نيروبي مانو أنا إسمي وشفيعي حق فرح سنة وهذا لا هود أصحابتي يوم مركز يعني استياشة يوتيوبرها دمانتين وما سنين سنين بينك شنين توانكا في الشهر وما تصدق ويا هاي حمد هذه بيب شاوي يمد صاحبتي ويا هاي عسود وي حسن قنطال بسود عيساق ويا مرة وحقه قلت من دونات نقطة مرة وقراعي حسن هو راعي halka wali sheekada kala socotaan fanaaniintii baan soo gaaray waa hobolladii qarniga ama qaranka baan iraade dhinacaas iyo Soomaaliya nooga yimaadeen magaala madaxdii maanta ka soo duuleen waan soo dhaweynaynaa ayaga laftigooda waxaan siinaynaa marka mirmir hadal aan siinaynaa waxaan ku bilaabayaa hobolka weyn oo halkan ku soo dhaweeyay malaha waxaan isiri Muqdisho si fiican ugu soo dhaweeyeen si uu soo orday baan u jeedaa xasan aye aad iyo aad salaaman tahay waad mahadsantahay walaal Muqdisho waxa weeye meeshii koobaad ee Soomaalinimada ay bartay marka cid kasta ka timaada si xamaasad leh baan u soo dhaweeyaa aad baan u salaamayaa bulshada reer Nairobi oo dhan iyo dhammaan Soomaali meel kasta ay joogaan ay naga daawanayaan waxaan halkan u joognaa inaan soo dhaweyno walaalkeen Sakariya Kobciye iyo Xamdi Bilan oo madaxa inoo furi doona reer Nairobi وهبينكي وتاريخه فاهمتها waxa inoo sheegi doona Cabdi Mursal أنا مرسل بشيء دونا أنا مرسل لي كاميرا هوري سأكون موجود سودا وكبعي ولا الوادوي هرتا هدي أرسل هذا الصاق وما شعورتي iyo wixii qalbigayga ku jiray horta afkuma ba soo koobi karayo inaan intaan boorana ku soo qoro dheer oo ilaa 1 kilomitir inaan ku soo faahfaahiyo mooyaane sida xasan uu sheegana Soomaalinimada reer Nairobi loogu yimaadaa hadii Soomaalinimada hadii jirto Soomaalida kale waxba ka dhindhimanay laakiin Soomaalinimada xalaashiiba iyo hadii ay wax walba qama qiimo kula ama astaan way wadadu lahaayeen wanaagsan biyaga loogu yimaadaa umadeena qiimaha badan aad ما تسندين بالله ويا حمد بلن oo gabadha waxaan isla ugu dheer laakiin waa gabadha ugu sidheer haye shacabka waasiinaysan markii hallaanba ku caawiyade haye insha Allah waa salaamaya dhamaan ummadda Soomaaliyeed meel bay joogaan waxaan ku faraxsanahay inaan imaado Nairobi waliba markii kugu horeysay baa xamday markii iigu horeysay imaado waa Nairobi meel fiiris ana meelaha diyaaradda xataa dadka ugu dambeeya qofka ugu dambeeya oo soo degto laakiin qalbiyan baad u joogaysaa way waa lagu marka ma sha Allah asxaabta ee soo dhaweysay waxaan ugu mahad celinayaa qofkii maanta ku soo baxay airport ku taagnaa waa dareemi kartaa abaal idin kaga heena waa idin mahad celinayna idin madeen laakiin abaal idin kaga heena anagana insha Allah waa ku faraxsanaynaa imaano hadda waxaan leeyahay lama kala maqnee taariikh meel ku qoran weeye maanta ma sheedareen matalaadka weyn ayaa iigu mudan madaxana anaga qalbigeena furan idin leenahay wayahay shaafi waan siinaya waana soo laabanaya waxaan u soo laaban doonaa bibshi shaafi aad baan idin salaamayaa saaxiibayaal waxaan leeyahay saaxiibayaal waa mahadsantihiin sida sharafta leh noo sugteen annaguna cabaar baan hawada ku soo sugnay waxaan dhayna waa idin dharriin waxaan leeyahay aan degdeg ugu gaarno aad u mahadsantihiin kaliya laba idin salaamaya waxaan ku soo dhaweynayaa saaxiibkay Bibshe bibshe wuxuu noo sheegi doonaa xilliga taariikhda meeshay tahay wuxuu dhan bibshe soo dhawow waa fanaanka asna aad u jeedaa oo maasantahay sida caadigaaba showga madaxana furan waxa ka dhacaya sarkaasi dhoom taariikh 15 January ayuu dhici doonaa insha Allah hadee reer Nairobi barnaamijka way sugaayeen ragii way yimaadeen waa keenna ayagoo runa baas ayadoo boorayeen ayagoo runa keenay marka kulli fanaaniin qaalin oo joogan oo xasan kamid yahay kamid ah iyo fanaaniinta kale oo qiimo badan iqra arkaya oo from Muqdisho ah Quraaqo waa la imaan doona fanaanka maqnaan doona Nairobi u yaraan doona insha Allah barnaamijkaas fanaaniin badan waxa afka xidhan baa ku jirta halka oo dhuumanaya jira marka welcome ale soo dhawaada iqra isi waya iqra inda deeq baa joogta gabadhii masraxiyada looga kala haray abwaanada waa u dambaysiisanaya waliba Eurobeelana way joogtaa meel falba uga soo oroday Halima Kismaayo waa joogtaa aniguna waa joogaa walaal hadalkiis kuma fiicninni hay masraxaas ku fiicnay walaal waxaan leeyahay deeran iga soo horeeyay soo dhawaade
waayahay hadalka haddaan ubax baa la guddoonsiinayaa khadra baad waxay tiri anaa haye waqti dheer bay noo joogi doonaan hal mooto lee waaya markaad magaalada faantid libaaxyo badan ay guleedahay mar geema ciyaartay TikTok baa ka sheekaysanaysaa geema isballasada haye hawa abwaanadi fartuun kareeto way soo gabagabanaysaa iyadoo abwaanadayda qormaanta madaxa ee furahan oo mamadaka qormaanta madaxa furahan oo mamadaka aniga madaxdaydiba meesha igu tiin maqaamka iyo quruxda ayan dhaxmaraya aniga meesha qaytagan waa ka muuqatay wale fanaan inta mudahan uma asaya oynay ku maqsuudi doonaan maleynaya daraja dheera qadarabe adusheenadi dadkaygiina waqtiin doodna waa bilaa odeeqda rabbiga khayra gaaray duntiina taa dadni malaha yasreerani man kan ku dirsan jee abooweega iyo kobciya gabahay waa uduubaya waliba xamdi bilana maanteeda kama dibdho deegaysta fanaanintan dowladda dadaan ku faanahaatihiin dad ugu jeclaa dad aan ku faanahaatihiin dad ugu jeclaa oo dirkayga ka yeelay rabbigayga daayinka daraja iyo sharafna ayagan dushooda dhig mar kale isoo dhawaadaanu leenahay soo dhawaada walaalay soo dhawaada isma gaarin xaflado waaweyn iyo barnaamij waayahay halmaamin kooxda Tawakkal ayaa ayagana cagta iyo waliba dhaanta qurux badan ku soo dhaweeyay suugaanta ku jirtay walaalaad wax nooga siisay abwaanada waxaan leenahay ninka kaliya oo isdhegaystay asagoo la amaan dhaxan isdhegaystay waxaan leeyahay inaan annaguna Nairobi annaga abwaanada aan u haysan ka tagi mayno mahadsanid thank you walaalkay ma waayahay wax yar baan markaas waa kala babanaynayna soo ma